ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya wuxuu kaabiga u saaran yahay oo wax ka yar 500 oo mitir u jira magaalada Gandarshe ee xeebta dhacda oo aan rajaynayno in saacadaha soo socda ay gudaha u gali doonaan kooxo yar oo khawaarija oo buur saaran oo ciidamadu ay ku wargeliyeen inay isdhiibaan hadday isdhiibi waayaanna in meeshaasi mudankooda la marsiin doono ayaa ka harsan in loo galo degmada Gandarshe ay ka mid yihiin gal Saliimow ceel Saliini galka Jimcooy diirafuul jabad eri Cismaan Gurey Halambe garas gawan iyo labada magaalo waaweyn ee Dhanaane oo hadda ciidanku ay nadiifin ku wadaan ayna ku guuleysteen inay gudaha u galaan Dhanaane oo la yaqaan inay in ka yar 10 kiiloomitir u jirto magaalada Barka oo ay taariikhdu tahay 27 bisha December 2025 waxaan halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ku saabsan guulaha ay gaareen ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya gaar ahaan howlgallada ka socda gobolka Shabeellada Hoose jidka dhulka u dhaxeeya Muqdisho iyo Marka waxa Ilaahay fadligiisa in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo ay hogaaminayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka nabad sugidda oo maalmihii la soo dhaafay howlgallo culus ka waday dhulka ballaaran ee u dhaxeeya degmada Marka iyo magaalada Muqdisho in guulo la taaban karo ay ka soo hoyeen howlgalka loo yaqaano seefta qarsoon howlgalkaasi oo muddadii toddobaadkii u dambeeyay socday ciidamo aad u tiro badan ay ka qayb galayaan waxaa lagu xoreeyay oo kooxaha looga nadiifiyay kooxaha khawaarijta tuulooyinka ay ka mid yihiin gal Saliimow ceel Saliini galka Jimcooy diirafuul jabad eri Cismaan Gurey Halambe garas gawan iyo labada magaalo waaweyn ee Dhanaane oo hadda ciidanku ay nadiifin ku wadaan ayna ku guuleysteen inay gudaha u galaan Dhanaane oo la yaqaan inay in ka yar 10 kiiloomitir u jirto magaalada Barka sidoo kale ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya wuxuu kaabiga u saaran yahay oo wax ka yar 500 oo mitir u jira magaalada Gandarshe ee xeebta dhacda oo aan rajaynayno in saacadaha soo socda ay gudaha u gali doonaan kooxo yar oo khawaarija oo buur saaran oo ciidamadu ay ku wargeliyeen inay isdhiibaan hadday isdhiibi waayaanna in meeshaasi mudankooda la marsiin doono ayaa ka harsan in loo galo degmada Gandarshe waxaan rabaa inaan hambaliyeeyo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya oo shaqaynayay maalmihii adkaa ayadoo aan ognahay ciidamada kale ee qalabka sida iyo dawladda Soomaaliyaba inay guul la taaban kara ka soo xaqiijiyeen amniga doorashadii khamiistii la soo dhaafay 25 bishan ka dhacday magaalada Muqdisho doorashadaas oo ahayd mid taariikhi ah dadka Soomaaliyeed ay u dareereen markii koowaad 60 sano ku dhawaad sanaadiiqda meesha lagu codeynayo ayna codeeyeen si guulana oo nabadgelyana loo guuleysto Soomaaliya waxay maraysaa meeshii 1964 madaxweynihii hore Allah u naxariistee Cabdirashiid Cali Sharmaarka uu ku yiri gacanna waan ku codeynaynaa gacanna waan ku dagaalamaynaa maanta waxay taagan tahay in ciidamadii ayadoo looga 10,000 oo ciidan ka badan inay howlgalladaas ka qayb galeen in maanta ciidankeennii uu guulo ka soo hooyo oo la rabo in la isugu furo magaalada Muqdisho iyo Marka wadadan u dhaxaysa jidkan xeebta oo jid istiraatiijiga magaalooyin badan ay dhacaan
waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo taliyaasha ciidamada qalabka sida ee hogaaminaya dagaalkaas iyo saaxiibada caalamka ee naga taageeraya waxaana runtii khawaarijta ka soo gaaray dagaaladaasi muddadii toddobaadka ay socdeen jab xoogan baa ka soo gaaray halkaas oo runtii ilaa hadda tuulo bay tuulo ilaa magaalooyinkii waaweynaa ay haddeertaan ay luminayaan qaarkoodna hadda ciidanku ku hareeraysan yihiin haddii ay isdhiibaanna in la soo gudbin doono oo dadka Soomaaliyeed aan u soo bandhigi doono iyo xaalkooda meesha ku dambeeyo gaar ahaan Gandarshe hambaliyadaas waxaan rabaa inaan dhanka kale u weecdo oo dhaho saaxiibadan siyaasiyiinta dad badan oo waxaa jiray maalmihii la soo dhaafo dhan ku mashquulsanaa ciidamada qalabka sida Soomaaliya kuwaas oo shaqo ka dhigtay markay siyaasadii ku fashilmeen inay ciidamadii yiraahdaan waa baabeen waa burbureen shaqo ma jirto hal urur isku toosan ma jiro waxaana taas runtii jawaabteeda ahayd horena waa u sheegnay in saddexdii buundo la xoreeyay bilii la soo dhaafay haddana dhulkan u dhaxeeya Marka iyo Muqdisho in ciidamadu toddobaadkii la soo dhaafo dhan howlgalka seefta qarsoon la yiraahdo ee ka socotay waxa sidoo kale operation xoogan uu ka socdaa oo aan rajaynaynaa maalmaha soo socda inuu guul ka soo dhamaado isagana gobolka Shabeellada Dhexe oo khawaarijtu ay xoog soo saartay si culayska ka haysta Shabeellada Hoose iyo culayskii ay lahayd doorashadii haday si nabadgelyo ku qabsoonto inay culays soo saareen Shabeellada Dhexe iyadana ciidankii taliye ciidanka lugta dhulka jira taliyaal badan baa jira ciidamadii ugu badnaa halkaas ku baxay waxaan rajaynaynaa iyadana in meelihii yaryara oo laga sheegayay maalmihii dhaweyto in la soo afjari doono maalmaha soo socda waxaan ciidankeena iyo shacabka Soomaaliyeed u rajaynaynaa guul si kasta oo imtixaan khawaarijtu ay u yihiin haddana qalabada iyo guushu waxay u dambeynaysaa ciidankeena dawladdeena iyo shacabkeena وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون